عكو سومالي نمو the next generation تي فرصة هالشعب إمسان هو يلا سوق المهاتير اللي قبل إذا مرة الصومالي نبورست كسابوه ذا يركن ويذ عيلي I don't want a man like my father like my brother. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا ولاشينا سعاد نور ما أنتم حرام مسج كان أن وقرتي إنه مهم يهاي إن عن دوبه مرة ربينا عن دوبه لكن وقتي يسامح حواي أنا ربين رنتي أسنها يكوفوا ضمان بعد أنا ربينا كهذا وحنك ربينا كهذا فتحية عبسية مرة بيننا كوفوا ضا وحربينا سفي عن أفهم مسج كذا وحربينا فيديو بدن كفير صدا وبدن عن كوسون قري ألعبت هذا وبدن عن كفير صدي I really يعني si aan u fahmo mar horan waa arki jiray wax ugu mucusub gabadha waa gabadha videodeeda min zaman arki jiray waa laakiin waxa rabay inaan deep inaan u fahmo messagekeeda iyo waxa ay sheegayso iyo day to day say messagekeeda isku bedel maalin walba messagekeeda isku bedel rabay of course gabadha youtuber waa youtube ku jirto youtube dadka badan waa laga shaqeystaa dadka messageka qof walba messagekiisa ku isbarid gareeya maalin walba video soo duubta at least one video a day soo duubta waa gabadh active ah oo youtube-ka active-ka ah oo message-keeda dad badan gaaro dad badanna dhibaato u keeni karo dad badan anfac u noqon karo so waa muhiim waa in laga hadlo maadaama ayada ka hadasho gabdho kaleeto Soomaali ah waa normal waa wax aniga ayada ma ataagareynayo ayada shakhsi ahaan ma ka hadlooyo laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo message-kay wado iyo saameynta uu ku noqon karo uu ku sameyn karo Somali community especially gabdhaha Soomaalida iyo wilishaba so maxaan marka aan why and really and deeply u dareemay inay muhiim tahay inaan uga hadlo Fatxiya Cabsiya message-kay spread gareynayso because aniga ma dhahay Fatxiya Cabsiya waa la soo dirsaday mise Fatxiya Cabsiya walaayadu bilaa diinteeda shakina qof gabar muslimad oo xijaaban oo deeply waxa aaminsanahay wax qalbigeeda ka soo go'ay sheegayso ay aaminsan tahay waxay sheegayso aniga saas aaminsanahay ra'yahanteeda waxay sheegayso ay spread gareynayso waxay iyada aaminsan tahay waay waxay iyada ka dhaadhacsan tahay waay laakiin taas taas cad ma naqarayso daliil uma naqarayso in wax fiican yihiin waxay sameynayso inay wax fiican yihiin ma support gareynayso the only thing is like aniga waa agenda waay wala soo dirsaday ma dhahay laakiin waxaan u jeedaa qof ayada based on her own experience her own trauma healing her own maybe still in her trauma healing ku jirto experience-ga iyada soo gaaray iyo experience-ga mujtamaceena Soomaalida ay ka arkayso in ay ka dhalisay mise ay samaysay ku kaliftay inay message-kan isas u spread gareyso ay u malayso inuu this is the right way oo wax lagu soo fagareynayo mise this is the right way ay ku helba gareyn karto ummadda community-ga Soomaalida saas aniga aaminsanahay so waxa aan first aan ugu raaxsanayna aan dangerously aan arko oo aan dib igu noqotay because aniga Fatxiya waxa share gareynaa hadii aan based on waxa ay videoda aan ka arkay waxa Fatxiya Cabsiya waxay dhahday inay social worker tahay social worker tahay social background-keeda oo waxbarashada oo social work yahay undergraduate aniga undergraduate waxa way social work aan soo bartay so we kind of share that professional background experiences at least to a certain degree taas aan share gareynaa so I just want to understand aniga intaan caafimaadka nimarkan baran waxa bartay social work that's my degree or first degree so Fatxiya Cabsiya message-ka iyadoo marka professional ah qof wax soo bartay qof high expectation and expectarena typical YouTuber ma ahan to me typical YouTuber ma ahan and she shouldn't be typical to YouTuber laakiin waxa devastating igu noqday waxa xanuun igu noqotay waxa aan la yaabay in ay labeling sameynayso adoo message rabto inaad spread gareyso adoo activist ah adoo justice rabto inaad sameyso dadka dulmana u hadasho dadka kaleetana change u sameyso aadana dadkii aan label gareynayso waa wax laga xumaado waay waa wax oo powerful or wrong way negatively u sameynayo waa waxa dadka isticmaalaan oo nafiicneen waa inay dadkii ku label gareyso oo dadka iyada opposite-keeda ahaa if you're opposite of her adiga ka soo horjeedid yaa waxaa tahay duulaysti tahay waxaa tahay qoyan both people يعني both group Soomaalidin way accept gareysay qof walba wuxuu ku leeyahay qoyan gabar kale waxay soo qoraysaa taas qoyan waa iska dhaafi qoyan asaas dhaafay qoyan gabdhihii in qoyan loogu waco already 50 la dhihi jiray qoyan markay ay fasashtay waxay dhahday qoyan macnaha maskaxday ka qoyan yihiin wax macnaha gabdhaha Soomaalida
caqliga ku yar dadka ay qoyan ugu groupka qoyan ugu waceyso waa group caqligooda yar gabdhihii waxay ku labagareynayda already society kusoo labagareysay 50 aad tihiin caqligiin wuu yar yahay all the message waaye oo rooted in Somali culture or already ability-gooda daawad garaynaya waxaa la hadana qoyanaad tihiin what kind of empowerment kasoo baxay markaa gabdhaha ugu gabdhaha opposite-kaaga kuwaasa u baahanba message-kaaga kuwa traumatized-ka kuwa oo xanuunku ku jiro kuwa u baahan inay message-kaaga impact ku sameeyo hadday message positive wado haddii kuwii ku label garaysa dhahda qoyanaad tihiin caqli ma qabtiin maskaxda ka qoyan tihiin qoyanaad tihiin you labeling is dangerous why that kind of labeling unacceptable why in adoo activist oo justice u ordeyso based on waxa adiga dhahday in haddana dad kaleeto dhahdo label garayso mujtamaci gabdhihii Soomaalida iyo wiilashii ku label garayso gabdhahan ever waaye qoyan waaye ilaa qaliil inta aniga raacdo ay igu raacsan waxa aan sheegay inta kaleeto laakiin qoyan waaye wiilashana inta aniga raacsan ma ahana inta kaleeto waxa waaye dulaysta waaye dulaysta at least dulaysta waaba you just emphasizing inay dulaysta yihiin oo soo dadka dulaysa jireen haddana sii dulaysanayeen it's the way even you label it waxa ka qaldan you're empowering labelkaaga xataa it's empowering dulaysta and dispowering the woman so I'm not sure how labelkaas meel oo ka imaaday iyo markaan dulaysta dhahdo oo naagti aaminto inuu ninka dulaysta yahay oo more powerful more dulaysanayo oo aydan qoyan tahay it's just negatively waxa waay opposite loo sameynaa inay gabadhii sii liido mase ay isdareento inay waxba ahayn inuu ninkiina oo isdareemo inuu dulaysa yahay oo iscajabiyo that's the dangerous ka imaan karo plus labeling ummad waa kasoo daanay ummad waxaan ahay qayliso oo caay iyo labeling lay wax rabaa inay ku bedelaan adigii I wasn't expecting you adigina soo kale ku noqonto oo ku darsanto oo adigina caay qaylo dad kale dad kaleeto oo la xaganayo maanta dhan dad aad waxba ka ogeyn iska dhahaysid oo dambi laga aruursanayo qof aad wax sameeynin oo aad ogeyn wuxuu sameeyay whether based on true waxa videoada la soo geliyay we don't know waxa dhacay waxa arkaa mar qoyna rafaadina leedahay qof la soo gelin agta awal qoyasaan ay dhadada qofkii roast gareynaysa hadana ninkii roast gareynaysa khalqi ilaah wax ka sheegaysa maanta dhan waxa leedahay xayawaan last time waxa arkaa idoo dheesa xayawaana idinku matalay ilaahu rabbi raxmaan oo cafi xayawaanka qalad ka galay xayawaan inaan qof ku matala ma ahayn xayawaanka idinka aqli badan xayawaanka bini'aadam xayawaankii qalad ka galay kuleedahay bini'aadamkii qaladka ay ka gashan ma arkayso bini'aadamka yawm qiyaamada soo istaagayo oo ajirka dadka xasanaadka ka qaadanayo wax ka sheegtay ma dareemaysid waxa dareemaysaa xayawaan oo min yawm qiyaama xayawaan oo wax kuma sashay bini'aadam leedahay xayawaankaas ilaahu yafi subhanallah I hope ina dareentid also in message-ka dadka wax ka sheegaysido mise dadka xaganaysido human-ka ayagana also ay cafiskaaga ina weydiisato mise ina ilaahay u toobkeentid ay kugu haboon tahay wax xayawaan kale ahayn waxa dambi ka galowsid oo message-kan oo qaylada energy Soomaali waa ognahay anaga waxa lay wax ka taraayo markay voice oo qayla ay maqlaan message qofka deliver gareyn maanta oo qaylinayo videoada maanta dhan qaylo waay qayla re-traumatizing activating trauma ani qof ba isu trauma soo barta ahay markaan videoadan fiirsanay waxa u baqaa dadka fiirsanooy how is it impacting gabdhaha fiirsanooy wiilasha fiirsanooy and who is there for them to support them caawinooy how they dadkan ku soo kickicinooy traumadooda maalin walba xagee resource ka helayaan you're not supporting you're not spreading message ka inay resource helaan gabdhihii you're not spreading message ka inay gabdhihii oo healing kooda bilaabaan in generally oo professional support helaan you just hate lay reactivate gareynaysa hate lay kicinaysa hate lay reactivate gareynaysa hate lay sheegaysa hate waa la idin duleystay saanaad tihiin qoyanaad tihiin intaad tihiin waxaad tihiin malatraashaad tihiin all that stuff in kana ninkaan duleystaa tahay khalqigiisa ila ilkihiisa iyo algihiisa iyo private partygiisa maanta wax ka sheegtay all that stuff that's ma change kuma imaado I don't think this is the right way to change ku imaado this is not the right way to change ku imaado waxay la separate gareynaysaa dadkii la sii kala fogeynay qof walba victim asaga la isku maleynayo especially the girls they just victimizing and using the victim card and not realizing recycle of trauma ay ku dhex jiraan not realizing iyaga naftarka waxa ku attractive gareey waxa ku xiray oo u dhaweeyay dadka adiga leedahay bahla yihiin
they need to start in their own waxa inay naftikooda self reflection or responsibility qaataan ay ishilgarayaan ay caawitaan raadsadaan ay isfahmaan naftooda fahmaan ma aha laakiin maanta marka lagu dhahay qofkaan asaas kugu sameeyay it's easy qofkii kale tale ina dareentid qofka inuu wax kugu sameeyo qofkaan ku dhibay qofkaan miserable ka dhigay oo adiga qof dulman tahay then it's very difficult qofka inuu fahmo naftiisa markuu dareemayo maanta inuu asaga aan ahayn oo qof kale painkaas u keenay oo qof kale le oo blame gareynay so aniga badanaa ma arko adoo gabdhaha dhiirigelinayso adoo gabdhaha ma arko positively oo encourage gareynayso waxaa la arkaa labeling waxaa la arkaa gabdhaha adiga oo waxa adiga rabta leh waxaan kala kula yaabay aan arko waxa adiga aaminsan tahay waxa adiga rabta leh gabdhaha rabta inaad ka dhaadhacsiisid you don't accept differencega bini'aadinka jiro anagana different aan qof walba different opinion different ideas uu leeyahay gabadha kaa duwan inaad ku ixtiraamtid waaye ra'yigeeda iyo tafkiirkeeda kaa duwan tii rabta inay maanta jiko ku jirto guriga joogto oo happy ku ah inay housewife noqoto in lagu encourage gareeyo waaye qoftii rabta inay 5 children 7 children dhasho ay happy ku ah in la leebargareeyo ma aha in la leebargareeyo waa in lagu encourage gareeyo waaye oo la dhaho you are also accepted you are also welcome you are also part of us laakiin in la taabuu gareeyo oo la dhaho haddaa adiga aad one time adoo dhehaysa arkay haddaa adiga you believe qofka doo marriagekiisa one time two time ka halaaw marriage that they should not look into marriage again this is your own root waxa waa adiga wax adiga aaminsan tahay oo adiga aad believe garaysa laakiin you can utilize that adiga qaacidadaas uma isticmaali kartid gabdhaha kaleeto ma believe gareyn kartid if they're remarrying hadday sii guursanayaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad hadday sii guursanayaan that's their choice that's their own life journey that's their way of processing their own stuff iyo that's their life yani ma dhihi kartid qofkaan saan sameyn saan le waay we supposed to encourage maxaa ku kalafay maxaa sababay maxaa sidee looga hortagaa sidee lagu caawiyaa dadkaas dhiban in laga fikro way rather than like oh if you're not doing this then adiga waxaad tahay saan adaa arkay oo dadka label gareynaysid adaa arkay oo dadka maanta dhan box ku xiraysid codka qaylada isticmaalaysid iyo caatintaas iyo qayladaas iyo aggressive way iyo emotional dadkaan isaga is emotional ah marna emotionally use gareynaysid isla adiga le maalina video soo duwaysid طريقة one way oo hadlaysid the second day another way the same topic marna waa dadka Soomaalida of course way ku sacabtuma maanta daasaas u hadasho waa lagu sacabtuma bariha daasaas kale u hadasho waa lagu sacabtuma isla adiga le waa isla adiga le waa marba si aad wadaysa emotion I know people want to make videos I want YouTube wax loo soo galay dadka video la sameeyo wax laga la fiirsada loo baahay laakiin please be careful waxyaabaha maalin walba soo view leeday ka naqata waxyaabo fake sometimes soo qaadanaysa waxyaabo fake oo qosol loo soo geliyo video qosol loo soo geliyo oo joke soo qaadanaysa video mar hore ahayna soo qaadanaysa waxa leedahay fiiri tan waxay dhowsan naagta waxay dhowsan nimanka maxaas lagu sameeyaa waxa adoo lagu sheego lagu leeyahay video war kaftin ahaan loo duubay wax jir ma aha waxa leedahay may this is the mujtamacin wuxuu yahay waa ka hadla maxaa looga hadlay adiga waxa laga yaabaa inay adiga tiro sida ay ku tahay based just like dadkan shucuurtooda kicici so that you get more people that ku sacabtumaayo dad ay tiraamadaas hayso ay markay message-ka maqlaan ay message-ka connected ku dareemayo because you maxaa tataabanaysa xanuunkooda painkooda tataabanaysa laakiin xanuunka qofka aad tataawatid oo waxyaabo oo video reliable aan ahayn soo gelisid oo because you want to make a topic out of it man maxaa topic ka sameeyaa lahayd iska naqata sheekada mar video aad ka soo qaadatid waa laga xun yahay oo dadkii mashaacirtooda iyo mujtamaciina kala fogeynay mujtamaciya kala fogeynaysa dadkii kala fogeynaysa gabdhihii aad dhahaysay malas attack all the time how many videos YouTube ka ku jiro qoyan kugu qoran title-kooda every video samaysa qoyan ka hadasha or dulaysta iyo labeling qofka dadka kaleeto dhan inay caqli lahayn dadka kaleeto dhan inay wax fahmaynin ilaa qaliilan inta ku soo raacday maaha dadka kaleeto ay dad ahayn waa laga fiican qofkii wax sheegaba oo adiga maxaa wax u dhahay hadda adiga hadashad maxaa ku tusay waxaan ka hadlay hadda adiga hadashad dulaysa tahay hadda dulaysa ahayn oo dadka kale 55% hadda tahay ma hadli lahayn shoo iska dhahay leed if you make a comment wax laga waxa way yaa dulaysa tahay mise hadda comment samaysa gabar waxa tahay qoyna tahay shabaska dhammays waa lagu soo dirsaday walo soo dirsan isqoyna tahay justice kan sameynaysa maxaa adoo waxa arkay dad dulman dhahaysid hadda Soomaali maato waa wasajina lagu gelina
waa lagu xiraa Somaliland daimat the recent video I saw a couple days ago sasa arkay I was shocked to see qof dhano oo social justice u dacwoonayso oo justice rabta inay peaceful and justful environment advocate gays oo dhaysa hadaa imaatid because dulaysi waaye because he's against your opinion or he is so called dulaysi dadka adigu ku label gays laakiin adiga criminal kaama galin wax kaama halaynin qof opposite comment ku soo qoray oo different opinion ka watay waxa dhaladaa imaatid meesha burle isku imaam Somaliland hadaa imaad waa lagu xiraa waana xabiskan waxa ku cuntad lagu musiilay waliba waa ku baqtinaysa I dare you ordo tag ya ordo tago ar marba adiga qof soo diray dulaystayahow fadhi ku dirka fadhiya caliyadu ka daaysa ordo tag adigu hargeysa sida lagu galo aad aragtide liil xataa lagu siin maayo jeelka biyo kulul baa lagu siinaya freaking dulayste khayr iyo brada nirjiniya. Is this what you're spreading? Is this truly what you believe? Qofka ka against gaga in la xiro or xabiska oo ku baqtiyo because he has a different opinion or she has a different opinion than you? Is this the justice in adiga ka soo jeeda meeno system kaas in adiga ka soo jeesman in adiga dadkii ku hadid dhahdid ku u use garayso dhahdid threatening uga dhigtid waa lagu xiraa meesha isku imaadid sasmay adiga ka suurta gashay almafruud qof oo waxa way justice iyo mission iyo wato oo empowerment samay changes samay laakiin typical hadda gabadhii fawaaxish musiibada ku dhacday fahiimo ilaaha dhibka ka qaado oo justice na u keeno gabadhaas videogeed markay aad duubaysay videoga soo gelisay gabadhaas uga hadlaysay maxaa oo niman Soomaaliya guursanina Soomaalida nimanka saan waay abuserin waay intay ka baxeen you made the topic la inuu wax baan nin Soomaali leeyahay nin le ma aha gabadhan waxa ku dhacay waxa waay broken system waa it's a broken system sana baa a guy wax sameeyay oo qalad sameeyay le ma aha waxa ku caawiyay waxa ku encourage garay waxaas si wado problemadan gabdhaha videoda laga soo duubayo waa broken government waa system aan lahayn government aan lahayn lalle ahaw musnaaq le ahaw there's no justice in Somalia waa ta sheegaysa leedahay ninka waa lagu xiraa adiga naftirka afka ka sheegaysa same thing waa naag waa la xiraa nin waa la xiraa naag waa la dhibayna nin waa la maxaa do we have even ma anaga wadan haysano ma anaga ka dar haysano ma anaga safety haysano maxaa adoo fahansan waxyaabahaas iskaga dhigay dadka uga dhigay si oo niman cadow bahal Soomaali oo dadka kaleetana Soomaalida justice dadka ku helaan ay naagaha le justice ku heleen since when we have never seen a system bubble ya system experience grace but for you why dadka Soomaaliya nabad soo gaaray oo experience garay nabad iyo peaceful iyo cadaalad iyo wax toosan xataa even then xataa there's a lot of question mark whether there was cadaalad system country saasana ay keenan laakiin gabdhihi waxa uga dhigaysa oo nimanka waay gabdhaheena second first generation kan hadda inta ku dhashteen Mareykan marabaan inay guursadaan Soomaali meeqa hablooda ay dhaheen gabdhooda marabaan adiga dad gabdhahaadi la rabin inay guursadaan Soomaali because your own trauma or your own experience with their father xanuunku ku soo gaarsiiyay that's your own choice like in adiga spread grace message kaas oo ka dhigto that's the message that's the way the exit ka looga baxaa gabadha abuser ka ay uga baxayaan iyo problemka Soomaalida ku haystaan inay ay cheap and clean ay raacaan waa adiga dhigay cheap and clean inooga fiican aan ahday nin Soomaali cheap and clean who told you why adiga glorify ugu sameynaysaa guurka oo ajaanibta oo gadhigaysaa guurka ajaanibka inuu guur oo successful noqonayo inuu guur oo peaceful noqonayo inuu gabdhaha lagu dhibeynin ay xaqooda xuquuqdooda ku helayaan who said that we all know that in saas ahead statistic ni manoo sheegayn kartaa where they successful man dadka cadaanka marriage successful mas dadka cheap and clean ka oo ajaanibta aroosta oo cheap and clean lagu leebgargaray adiga sheeysay successful marriage qabaan oo Soomaalida dhamaan how significantly who said gabadhaada markay nin cadaan guursato in happy marriage happy marriage ku noolaanaysa peaceful marriage ku noolaanaysa who guarantees that miyaasas dhii kariyaa garanti garayn kara yaan xagee laga arkay statistic support garaynaysa xagee waay ma haysaa ma nolol sheed garayn kartaa inta maanta dhinaca Soomaali ka carara Soomaaliha guursanina Soomaali ka carara Soomaaliha guursanina ajaanibta la idin qaatay who dhahay ajaanibtu way fiican yihiin marriage everywhere is problem and nowadays society ka haysto Arab lay fiiri cadaan lay fiiri Muslim igal there is a lot of problems when it comes to marriage is easy ma aan marriage not easy ma aan guur najaxay successful marriage is not easy
laakiin waxaa uga dhigaysa dadka inay Soomaali leh problem yihiin oo problemka hadda Soomaalida la ka hadli leeyahay waa fiicnaaneed laakiin waxaa xanuun ah inaa mar walba isbarbar dhigayso Somali to another people ajanib Somali to qof aan diin iyo waxba lahayn Somali to another Muslim or different country لكن قف كله different country هذا أجانب أروسيد whether they're Muslim or non-Muslim هذا أجانب أروسيد هبفول حواي قبل الصومالي هذا happy life يكون جرتا هذا لكن إن صومالي أكتي سجوكتو مسألة أقول هاي خلاص واي miserable abuse يكون جرتا who said that run from Somali you're spreading the message run from Somali people oh aku Somali أنا قناة Somali oh like إنا identity that إيجاب identity problem كمان إنما أنت لو كورينوي dad iyagoo yar oo broken identity already qabaan soo galaan inta iyo trauma qabaan haddana oga sii dhigaysa Soomaali inay wax xun tahay ay Soomaali justice lahayn ay Soomaalida xun yihiin they shouldn't be marrying if they happy life they rabaan inay ka cararaan Soomaalida identity issues already aan qabnaa is that a thing good thing miya gabdhahan markay gabdha unless they're really prepared unless they're really healing unless they really are understanding themselves yaa u garantii garay حتى then حتى يا قرنت الزواج وحينها عرفت زي البطيخة بطيخة قارها حبحبك مركو دبولية سكستو أو حبحبك أو فيرس أو تشجر يسد أو فيرس أو try اسكو دي سيد ناس في سوقات متكو في عن مركا يجرتد لأوغاريسا whether it's really حبحب كيف يعني إنه ياي زواج زي البطيخة بطيخة marka jirtid la ogaanaysa inuu xabxab fiican ku soo baxa qaraf fiican oo karsano macaan haduu ku soo baxa nasiibkaaga waa haduu mid xun ku soo baxana is also nasiibkaaga waa a choice adiga samaysay yaclaf then you have the choice whether you want to stay sacrifice whatever you want to do you want to leave qof personal choice waa waxay qof walba rabo laakiin ha uga dhigin glorifying the marriage ina uga dhigtid fikirka waxaa madal walba ku soo celcelisaa marriage kada sanka lagu saareenin hadaa ninka san lagu muxabaysanaynin maanta dhan waxyaabo waxaa ka dhigta movie oo kale to reality laga hadlaa mugtahay reality in laga hadlaa fiican gabdhaha uga sheekaynin marriage is not that glorifying ka ku sameeyay beautifully uga dhigaysido peaceful ma ahan marriage waa laba qof oo different opinion different identity different experience different own naftarkooda daily stresses wataan oo journey ku jiro waay maalinna ay axsal tahay iyo macasal iyo basal tahay waa maalinna macaan tahay maalinna ay basal oo kala tahay oo xun tahay this is what life is and marriage patient lagu joogo dadka successful marriage qabaan ma wareysatay weliga have you ever talked to somebody or 20 years 30 years marriage ku jiray successful marriage what you call يعني identify as successful marriage ma wareysatay nobody will tell you that they will you know while it's محبيسناي while لغها لساري سنكا لسكو ساري while جعلها الجراي 24/7 and that's why marriage goes successful ونقضي وانت سو قارين ما جرت اساس ما اهن marriage كسا كدغيسد that's unrealistic why what that's قبلها اكو قلديسد marriage عدان markaas عدان اساس idin sameeyeen Soomaali wuxuu idin hayo malahan عدان ma helayaan asas u sameeyo they all kuwi Soomaalidan waa ka you know you're spreading hate and waxa weligo say problemka Soomaaliya it's not a problemka Soomaaliya it comes with a lot of stuff marriage is not just like that beautiful or package ka adiga ku deliver gareynaysid oo leedahay dad ka helin iska ha guursanina ha iska jooga you spreading nowadays also recently in gabdhaha in guursan iska joogaan single mothers ninka la fiirinina oo ninka yar ha fiirinina ninka weyn ha fiirinina nin whatever Soomaali ha fiirinina nin aad ku muxabaysanayno oo sanka ku saareen hadaad helin iska joog you were saying last time dadka kale waxaa dadka qofka kale adoo ku dhahay arkay dadka kale dhahay hadda dadka waxay dhahaa waa u qabanaa you can't just say a word it has to be counted for you we have to if you say that same thing we have to count for you every area adiga afka ka soo baxa too you were saying last time maxaa ka rabtiin niman donation sperm donation ma iska raadsatiin inta nimankaas aroosi lahayd nimanka dhanaa garbage ka dhigaysa waxa ka dhigaysa qashin oo xataa you rather inaa iska soo qaadatid sperm donation who are you talking to how dare you say that message adoo dad Soomaali muslim la hadlaysid adoo og in ereyada aad dhahdid dad affect ku sameynayaan oo influencer tahay oo dad badan ku xiran yihiin how dare you say that muslim tahay oo ogtahay inay waxa sperm soo qaada soo donation iska soo qaad inta 3 jeer 4 jeer guursan lahayd nin Soomaali hay iyo adoo dhahaysa arkay also like who needs a marriage you can satisfy yourself subhanallah what does that mean
yaa guur u baahan adaa isqanci karta markaa leedahay maxaa laga wadaa maxay isku qancineen toys are you trying are you I'm not sure anigaas adaa kaa maqlay aniga waxaan meel kasoo qaatay maan videogaaday ku jirtaa subxaanallah yani you're spreading a very dangerous message maybe adiga ma dareemaysid laakiin messageka maanta dhan dadka mashaacirtooda soo gelinaysa oo soo kicinaysid aa leedahay guursanina soomaali ilaa ana nin oo kaa dhigto whatever oo waxyaaba oo real ah marriageka bajirin oo everyday aan ahayn nin saas ku sameynaya hadaad helin iska jooga you're spreading maxaa rabtaa dad inay noo imaadaan community oo hadhow sida cadaanka oo kaleeto marriageka sida loo nacsiiyey ee isla nool yihiin ayagoona isguursan marriageka waa laga baqaa laakiin boyfriend girlfriend okay waay last time oo arkay fatxiya fiska whatever fisk gabadha fiski farxiya fiska I think so that gabadhan oo fanaanada I don't even know that much laakiin gabadha iyo social media yaanta dhan ka buxday oo zawaajka xalaalka guursatay adoo shame garaynaysa arkay oo adiga first dhahday ku identify oo dhahday she needs the therapy you are maxaa u dhahaysa ninka ka daba hadlay ninka dhahay gabadha way waalan tahay ma adaa ka horeysay adaa dhahday waa waalan tahay ninka dhahay gabadha way waa waalan tahay noo qabto ninka aad guursatay qalad ay ku guursatay adaa ka horeysa dhahday gabadhaas therapy u baahan tahay you said that what does that mean therapy u baahan tahay that mean choice either samaysan oo she's not aware of your choices qof oo choicekiisa soo caqli ah baaliq ah healthy ah samaystay ma aha waa qof u baahan in therapy la geliyo oo u baahan you know that she's not aware of what she's doing yaa ku dhahay saas how do you know that since when you start shaming people like that and telling them that they need a therapy iyo she shouldn't do that if your choice waa adiga waxaas oo kale sameynaynin laakiin waxaa la yaabay cunwaan ugu soo dhigatay sorry video idinku daayay laakiin waxaa la yaabay cunwaan uga soo dhigatay inaad dhahdid farxiya fiska ma hasaawihii iyo gurkii askaga qaldamay miya so you are actually encouraging waxaa allow garaynaysaa in lala hasaawo mase in lala date gareeyo mase boyfriend laga dhigto wiil yar oo kaa yar you know waa date garayn kartaa laakiin you can't marry what does that mean why would she even date maxay wala hasaawaysaa cunugeeda ka yar haddaynan guursanaynin as adiga leedahay how you're accepting in a 18 year la hasaaw garayso but you're not accepting in a 18 year guursato right based on what you said adiga I don't know wuxuu jiro wiilka laakiin adiga waxaa dhahday hasaawihii gurka askaga qaldan miya waa lala hasaawa qofka january waa qofaa soo koraa qofaa ka digaay qofaa ku muxabeysana qofaa ku jeclaanay okay waa jaceylka iyo hasaawaha waa la ogolaya laakiin guur inaa ka damacdid qofka ayar macquul ma aha it's unacceptable it's acceptable to date it's acceptable to have a boyfriend it's acceptable in maybe problem kala dhaco macaasi meeshaas ka dhacdo oo dhanbi iyo zina ka imaato laakiin it's not acceptable xarag xalaala in la ku guursato qofka yar so you normalize sidii waa dadka cadaanka ay dhahaan 17 years gabar ma guursan karto oo nin ma guursan karo child waaye laakiin single mother way ahaan kartaa ilmana way haysan kartaa tafkiirkaas oo kale waa mise how many people are aragnay 17 years well same thing like you can date wiilka maba ahaanba 17 ma ahayn you know he was an adult qof adulta laga hadlaya we're not talking about children laakiin waa mabda iyo kaleeto waa based on that mabda where people can have whatever they want way samayn karaan based on laakiin way date garayn kartaa boyfriend way ka dhigan kartaa fatxi fiska day boyfriend ka dhigan lahayd wiilka acceptable u ahaa ma waxaa noo keenaysaa marka mujtamaca wada messageka waxaa noo keenaysaa in gabdhihii maybe single mothers ka ahaayeen mase gabdhaha ahaayeen oo wili marriage soo marin inay okay uga dhigtay inay boyfriend la noqdaan wiilal yaryar mase wiilal aan guur ka rabin because you're shaming mujtamacada shame ka dhigtay they can't marry ma u guursan karaan because ceeb waaye hadday guursadaan way ka ceeboowaan laakiin way dadgarayn karaan way la soco karaan way la hasaawi karaan qofaada isku level ahayn mase aada guur ka rabin inaad la hadasho mase aad shukaansata ma aha you supposed to be qof adiga guur ka rabti laakiin and normalizing in qof rabta la shukaansado xataa little children la shukaansado then ka dhigtid marriage-koodan unacceptable waaye wax khatar waaye oo unacceptable waaye I don't know waxaa ka wada ma u malaynay waxaanay rabtaa inaad ugu soo badisid gabdho boyfriend and girlfriend isla qabaan mise dadkaanayto mujtamacan kaleeto dadkan kaleeto la naqdo oo wixii laba gabdhood iskugu laabto because malahas nin soomaalina adaa ka fogeysay nin jiban kalina badan and everybody gets it it's not even that accessible to some people so what they do maxay sameynayaan satisfy themselves or maxay sameynayaan inay isku laabtana
subxaanallah yani waxyaabaha aad samaynaysid messagekaas ها isbalad garaynaysid waxyaabo kale ka hadal maanta dhan nin inaag inaa ka hadashid oo si xunna oga hadashid waa laga fiican yahay waxyaabo mujtamacayn hiila garaynaya gabdhaha fursad camal u sameey shaqadooda ka hadal what they're doing educationkooda how they're managing their day waxyaabo kaleeto laakiin maanta dhan dulayste emotionkooda inaa soo kackicidooda oo tiraamadooda soo kackisid dad ayaga iska dhibaataysan oo problem qabaan oo marriage counseling qabin marriage counseling ma qabaan Soomaalida dad meel ay la hadlaan iyo trust the place iyo safe place ma qabaan dad ayaga marriage problem haysto oo meel ay ku nafisaan lahayn mis meel caawiso oo fahanto oo qoysaska lagu xaliyo umuurtooda aan qabin Soomaali ahaan iyo gabdho iska masaakiinsan ay u malayaan in adiga khayr la doonaysid oo adiga aan leedahay iska buri dulaysi kaliya iska noolaaw uma baahnid gabdhaha yariiskana waxa waaye dulaysi Soomaali ma wala rabnabo ajaanib la rabnaa that's all message ka arkaa intaas ay igu xanuun badan aan arkaa igu soo laabatan rape-ka gabadha la rape gareeyo aan daadayka hadla waxaan ka hilmaamay rape everywhere oo ka dhaca rape Mareykankan hadda ay ka dhigayso inuu adduunka ugu khatarsan yahay oo ka dhaca rape one in every 6 women in America rape or attempt rape is experience grace every 1 in 6 lix gabdhood markay meel isku yimaadaan at least hal gabar rape laga experience grayso or attempted rape in meesha aan ku noolnahay Mareykan so Mareykanka iskuulada iyo dorm roomka iyo college-ka iyo gabdhaha yariiska iyo after party iyo meelaha lagu rape gareeya every day iyo every night ayagoo meel justice joogno meel oo system ka jiro saasay tahay kuwa la sii daayaa based on their economic iyo lacagtooda iyo statisticooda lacagtooda how many people are la sii daayo inta Mareykan aan ka hadlaynaa wiilal yaryaroo college ku jiraan oo gabdho reeb gareeyeen oo la sii daayna it happens in everywhere it happens meesha anaga joogno anaga u malayna justice inay tahay ay ka dhacdaa ma aha reeb wax Soomaaliya ka dhaco waa meel kasta ka dhacda anagana Soomaaliya burbur ka jiro waa burbur ka weyn naceebka nimanka waa burbur ka weyn waa so called dulaysiga sheegays waa systemic burbur waa dysfunctional country waa no melan system lahayn how can you expect melan system lahayn justice lagu helo we don't have a government we have a joke government also ma qabno Allah na siiyo peaceful Allah na amaso na siiyo peaceful country inshallah ducada iyo in healing keena la encourage gareeyo laakiin umudan oo iyaga emotional traumatized advantage laga qaato video loo soo geliyo maalin walba oo mashaacirtooda la kiciyo gabdhihii iyo exit marriage ka orod ninkaaga san ku sameeyna video fake la soo qaato oo joke oo looga dhigo dadka mashaacirtooda loo kiciyo waxyaabahaas intaas iska istaajin ku dhila waxyaabaha sameeyay reflection ku sameeya ku dhila please reflection ku sameey waxyaabaha u sameeyno sida reflection ku sameey adaa bilowday shaming another woman adaa bilowday labeling people adaa bilowday ina waxyaabaha adiga la aaminsan tahay adiga kugu qofna ina spread gareyso waxyaabaha dangerous-ka dadka kale normal uga dhigto qofka ka soo horjeestana ku label gareysid labeling iyo aitin and labeling naga istaaji professional way ma ahan way oo dadka wax loogu sheego ma ahan way oo qof dhan oo mission iyo change rabo inuu sameeyo justice ahaada ma ahan waxa la sameeyay waxba badan oo qalad ku jiro waxaan ku dhilaa message-kaad gabdho badan oo masaakiin ah dhageystaan wiilal badan oo masaakiin ah dhageystaan message-kaaga change waa u use gareyn kartaa si sax ah waa u use gareyn kartaa si powerful positive umadeenan healingkeeda iyo change fiican ka keen resultigeeda keenay waa u use gareyn kartaa laakiin saa hadda u use gareynaysid waxyaabo waxa wax kala fogeynay waxyaabo hate iyo dadaan problemkooda ogeyn iyo circle you're just activating and keeping the people in the circle of trauma go a circle of dysfunctional family sas wax kaas bisa sameynayso wax kala ma sameynayso please reflect ku sameeya ku dhila reflect ku sameeya waxa sameynayso please dadka fiirsadana ayada hadda kor idin sheegtay qofkii fiidiyoda ku mid tahay aniga ma dhahooy yani wax research based away qofkii wax fiirsado 40 bari waxa fiirsato 40 maalmood videoga fiirsato qof wada alaabtiisa fiirsanaysa message-kiisa 40 days waxa ku laabato waxa sameeyay 40 days waxyaabaas saameyn kugu sameynaysaa way ku dhaxkalaysaa saameyn kugu sameynaysaa leeda noon qodada reflection sameeyeen oo inta fariist okay gabadhan saan u hadashay maanta waxa ma ku saxnayd ma ku qaldanay xagee maxay ujeedada maxay ka wadasaan maxaa way waxaan ka qaadanayaa waxaan maxay soo kaciyeen aniga dhibaatooyinkeedii
waxaa la igu soo kaciyey waxyaabo benefit iyo amiya mise waxyaabo dhibiisii karooyo hadda laxdadan iyo dareenka hadda dareen weyley ma aan ka fikirooya mise choice iyo decision ha qaadan adoo videowadeeda fiirsatay ka bacdi reflection ku sameey iska ilaali waxyaabaha inputka kusoo galayo oo messagedaas kugu reemoyaan waxa fiican ka qaado waxa xun iskaga tag haddaa fiirsanaysid waxa fiican ka qaado waxa xun iskaga tag laakiin you have to be very aniga kuwayga xataa haddaa fiirsanaysid mar walba qof videogiisa aa fiirsanaysid waa inaa fiirisaa qofkan waxyaabaha fiican aa ka qaadataa waxyaabaha xunna aa iskaga tagtaa waa ina adiga isla fadhiisataa dhahdaa maxaa qaatay maxaa i galay wixii aa dhegaysato dhan way ku galeen ina adiga kasoo bixisid waa wixii kuu ficneen aa kasoo saartid aad sii baanaysatid oo maskaxda aad sii store garaysatid haye kuwaan intaan gashtay kuwaan xaggaan gashtay kuwaan waa iska saaray kuwaan wax kaleeta hadda kor aan maqlay ay connected leeyihiin waa in aad isfahantaa oo wixii soo galay aa baanaysaa aa wixii fiican ka qaadataa wixii fiican laakiin haddaa iska dhegaysto ka socotid adoona isla fadhiisan wixii way ku galaan wixii ani kuu soo duubay mise wax walaashaas kuu soo duubtay mise wax qofkaas kuu soo duubay please social media dad Soomaalidii anaga emotional iska nahay dadkii kaleeto oo noo soo kacay oo waxyaabo video sameynayeen si qalad ay u sameynayaan some of them waxyaabo qalad ay isbedel gareynayaan hada dadka ugu dangerous gareysan aniga aaminsanahay oo social media inta aniga ka kasaay videowada oo dangerous ka sameyno waxay ka mihiin gabadhan Fatiha videowada oo yani saameyn ku saameyn karto negatively dadka ku saameyn karto qofkaan ka dignoon Fatiha absi videowada kamid ah baabajay videowada kamid ah waxyaabahaas oo marka ina aad iska ilaalino dad badan aniga kasayna laga yaabaa aniga I'm not really that active in social media busy ahay hooyo shaqeyso busy ah laakiin dad ay dhiido oo adii lacag rabta inaan ka sameeyo videoga hatta monetize ma dacay kuma jirto shilin aan ka qaadanayo ma lacagna kama sameeyo laakiin عند الله waxaan rabaa inaan arko ilaahay waa arkay waxaan waa ka hadlay inaan Allahumma balagt Allahumma fashhad intaas bas u soo duubay xumaan iga maaha wala shay bilcaks waa shared experience aan qabnaa shared identity aan qabnaa waa walaal muslim aan khayr la rajeenayo aan raba inay iska dhaafto waxyaabaha aan u wanaagsaneyn mise waxyaabaha ay si qaldan dadka kale u fahmi karaan mise dadka kale u saameyn karto xataa haday iyada ka wadin dadka fiirsanaya si qalad inay u saameyso wixii ay sameynayso aan raba inaan soo xasuusiyo I hope in message maqashay Fatiha Absiya عافي مسامح I don't have anything against you I wish you the best ما نربين حتى انت travel grade صار بينا عن كسر دو فيديو waxaas bay gabadha iyadoo travel grade wax ka duubin iska sugitay guriga ku soo laabanaysa ma rabin in aan buuq iyo wax kugu furo mise waxyaabo aad dhibsanaysid message-ka inuu yan negatively ku soo gaaro adoo safaraysid oo event iyo waxyaabo aad integrate so I waited inta ka imaanaysid guriga ku soo laabanaysid alxamdulillah salaama I wish you the best I hope in you know positive change as sameysid voice ka u isticmaashid sida sax ah adiga naftirka reflect u sameysid waxyaabaha aniga u dacwoonayo zaman feminist ah dhig jirtay hada I know hada iska dhaaftay you don't say anymore because videodan ku arkay aniga zaman adoo dhehaysa feminist ah or feminist kana isticmaala to bring some change it's okay feminist dara muhiim ah muhiimadu waxa waay hada feminist ma aha dhahdid xataa laakiin message-kaaga uu yahay feminist iyo ideology-gaas ay ku impact gareynayso oo influence gareynayso oo ku saameynayso oo message-kaaga ku base gareynayso yahay wali saameynta ku taba socoto ma ahan it's about just waxana ahay ma it's about message-kaas sameynayso meel oo ka imaaday iyo xagga ku base gareynayso yahay sidoo dadku u taabanaya sidoo saameyn negatively u sameeyo ama positively u sameeyo muhiimadda intaas waay laakiin amna hada adiga dhahin feminist ma tiita soo far muhiimadda ma aha qof feminist ah laga yaabo oo misaya oo hadana positive change sameeyo oo voice-kiisa sax u isticmaalo ma ahan muhiimadda only that label or that thing it's about waxa adiga aaminsan tahay waxa adiga soo bandhigoosid waxyaabaha dadka aan ku dhagay maalinba qof si qalad ah uga hadlaysid iska istaaji please aniga waxaan idin rajaynayaa khayr please videogan si gaarsiya Fatiha Absiya dayna gaarin si gaarsiya dadka Fatiha Absiya ku xiran iyo dadka fiirsada dhan waxaan idin la ma ku qaldanahay waxyaabahan saani u arkooyo ka duwan ma u arkoosiin wixii aan ku qaldanahay saxa aniga naftirkay bini aadin ahay laakiin in la ikhtilaafka waxa ikhtilaafka xataa culimadeena iyo madaahibteena loo keenay rahmatun lil alamin waa ikhtilaafka acceptable waa so we should accept in a different opinion aan leenahay wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh